walaalkayga muslimka ah oo daaba qisadani xanuunka badani waxayna ku dhacday gabadhani waxay ahayd gabadhani mid dhiig uu ka soo qulqulo dusheeda markii ay gudaha gurigeeda joogtay ayadoo la yaaban deedna way oysay laakiin ooyin maxay taraysaa mar haddii ay soo xaadirto geerida waxa haya dhibaato aad u culus waad dareemi kartaa xanuunka soo gaaraya waxay dareemaysaa xanuuno aad u kala duwan laakiin hadduu ilaahay xanuun ku qabtaay yacni uu cadaabaayay uma dhinno wax xanuuna waxay ahayd mid ka dareemaysa xanuun caloosha bal waxaaba ku dhacaya xanuuno kala kuwaasi kasii xun waad arkaysaa sida kaaga muuqata shaashada gabadhani waxay u dhalatay dalka Indonesia waxa u soo galay hadda mid ka mid ah adeeradeedii ama qaraabadeedii deedna wuxuu arkay caloosheedii oo aad u sii kala baxaysa wuu la yaabay wuxuu qayliyaba oo wuxuu la sii fadhin laayahay kaaga daran urkeedii waa aad ayay u xanuun badan tahay run ahaantii waa mucjiso deedna waa uu ka tegay meesha gabadhi waxa haya xanuun aad u darani way cawaadaysaa wayna rafanaysaa sida kaaga muuqata shaashada waxay qaadatay boorsadeedii ayada waxay moodaa xanuun iska caadi oo dhaxdhaxaad ah laakiin mar uma haydo waa tana wadada dhex jiifta waxay ku haysaa caawiya laakiin sidee loo caawinayaa ilaahay bayba ku caasisay muddo fog kadib waxaa soo maray laba wiil oo dhalinyaro ah caawi ayay tiri laakiin way ka carareen waxay dhaheen way soo cabsan tahay waxyaalo kale mar hadday geeridu timaado cad oo yacni cad ku caawini karta ma lahan waxay leedahay caawiya way rafaadsan tahay waxaa soo maray dad kale haddana way agmareen wayna ka kala carareen balse urkeeda ayagoo leh uf alla maxaa ka xun waxaa soo martay gabadh kale waad arkaysaan dhibaatada ka muuqata waxay tiri walaashaydii maxaa kugu dhacay deedna way ku dugtay ayadoo isku dayaysa inay caawiso waxay la yaaban tahay dhiigaan ka socda alaabteeda ayay u aruurisay waxayna ku tiri sabax waxaan ku geynayaa gurigaygii oo halkaan ka dhow waxaa ka hor imaaday wiilkeedii su'aalo markay isdhaafsadeen kadib waad arkaysaan sida ka muuqato xanuun badanaa geerida cad allaala ciddii dayacday salaadaha sidaani baa u dambaysa waad arkaysaan dhibaatada haysa wejigeedii ayaa madoowaaday kalarkeedii ayaa isbedelay allah qaab darana ciddii ka tagta salaada waxaa isbedelay gacmaheedii ayaa la leeyahay wejigeedii wuu isbedelay alla maxaa ka xanuun badan deedna way dhimatay wayna geeriyootay lianna maxaa yeelay kullu nafsin daa'iqatu lmowt adduunkaani haddaad isku mashquulisaay maalin baad geeriyoonaysaay way geeriyootay wayna dhimatay haweenaydii kale iyadoo la yaaban waxay astaghfirullah iyo subxaan allah ay dhahaanba deedna waa la soo qaaday waxaana la wada qabrigeedii laakiin yaa caawini karaaya waa lahaan la'yahay dadka mid walba mid kale u dhiibayaa ayaa la wada leeyahay waxay dayacday salaadihii waxayna ka tagtay amarkii ilaahay deedna waxay sii tuurtay weliba xijaabkeedii ayadoo muslimnimo sheeganaysa alla qaab darana haddii ilaahay ku caasisa waad arkaysaan dadkii way joogi lahaayeen sanka ayay wada qabsadeen ayaa la wada leeyahay xitaa cayayaanada ayaaba dhiman raba
nabigana wuxuu noo sheegay in arrimahan oo kale ay ku dhacaan dadka ilaahay ku caasiyey waa la kala cararay meedka keligiis ayaaba dhaqaaqayaba lafihii ayaaba shiidmihayaba sida makiinadoo kale alla qudrada ilaahay weynaa waad arkaysaan waxbaa ka baxay cadaab ayadoo nool dadka ayaa lagu cibro tusayaa ayadana waa mid kun ayay ahayd alla cadaabka gudaha kusii sugaayo xumaa waxaa ka horeeya masas aad u waaweyn iyo abeesooyin iyo waxyaalo aan la sheegi karin daadna qabrigii ayayba ku dhacday kaligeed alaabteedina way ku kordaadatay alla cadaabul qabriga sii sugaayo xumaa carradii ayaa kaligeed iskaga daadatay rasuulkan wuxuu noo sheegay dadka noocaani oo kale ahi in lafahooda la isdabamarinayo garbahoodana geeska kale midba geeska kale uu madhayo sidaan ilaah ayaa yeelay ayuu leeyahay wadaadka sidaani ayaa u dambaysa ku shuba carrada waa la joogi laah meesha ur iyo qaabdarro waxaana u imaanaya haddana kaaga daran laba malag waxayna weydiin doonaan camaladeedii walaalkayga muslimka oo haddii uu ku soo gaaro muuqaalkani haddii aad tahay dumari ku dadaal salaadaha xijaabkana dhow haddii rag aad tahayna xijaabka kuma quseeya adiga waxaa un dhoortaa salaada sidaan ayaa u dambaysa cid walboo ilaahay ku caasisa ama ha ka tagta salaad ama acmaalo kale salaadaha ugu darnaadka waad arkaysaa wiilkani waa kii haddaay dul joogay alla cibro maxay ugu filan tahay intaan qof walba oo arkaa muuqaalkani hadduu saameeyo hasiishaaya gareeya yacni hasii gudbiyo waxaa laga yaabaa walaalkiisa kale inuu ku soo cibro qaato waxaan nii soo gudbinayaa anigoo ah cabdillaahi mawliid ibraahim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaasi waxay ka ahaadeen fikradaydii daciifka ahayd waxay soo alifatay qisooyinkan kugu kasii fara badan haddii aad doonaysid fadlan nalaga soo xiriir lambarka ah 685 aan ku celiyo 685 asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu باي عبد الله مولد